الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، بإذن الله سبحانه وتعالى ساكا وحين قادن دونا درسي كسابسا قيام الليل. إنو قفكو هبينكي إلهي سبحانه وتعالى إسوتاغو وإلهي سبحانه وتعالى عبادي سأو تفرغو. قيام الليل waxa loogu magacaabo culimadu leeyihiin ama qiyaam ramadaan arkaantii salaada noocaasi ay lahayd mid kamida ayaa lagu khaas yeelay oo qiyaamku ama taagnida salaada loo istaagay waxa kamid tahay arkaanteeda sida laajligeed rugniyada ugu muhiimsan maadaama ay kamid tahay iyo marka qiyaamul layl leeydi taagnida habeenkii waxa kale la yiraahdaa صلاة الليل صلاة دي هبينك قيام الليل أما صلاة الليل وحا صوص قليسا صلاة دان أينو نقانو صلاة دا تراويح دا لأن إمام بخاري مسلم صحيحين كودا وحي كسو صارين عن عائشة رضي الله عنها إن مركا عائشة لقوريي إن يتري عائشة نبي عليه الصلاة والسلام دادكو تكيي habeenada kamida bisha Ramadaan dad baana markaa la tukaday nabiga kaleey salaatu wasalaam maalinkii labaadna waa tukiyay dadkii baa markaa intii ka sii batay maalinkii saddexaad iyo afraadna waa tukiyay ilaa markaa masaajidkii uu buuxsamay nabiga kaleey salaatu wasalaam inta kadib muuna soo bixin markaa dadkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam uu tukinayay baa sugayay habeenkii shanaad waxaana markaa guda galeen inay nabiga u dhawaaqaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri amma innahu lam yakhfa alayya amrukum arrinkiinan iyo kulankiinan isku timaadeen ee sugaysaan inaan salaad idin tukiyo igama qarsoonin laakiin khashiitu an tuktaba alaykum salaada waxaan ka cabsaday in leedinku waajib yeelo oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam salaatu leelka min khasaa'isihi bay kamid tahay isaga waajib ku ayado nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenka salaatu leelka waa tukan jiray marka nabiga kaleey salaatu ummadiisa uga cabsanaya in lagu waajib yeelo nabiga kaleey salaatu wasalaam u joojiyay kadibna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu iya dibka bilaabay khilaafadiisii waana marka salaada aynu hadda naqaano ishaa'iga kadib la tukado markaynu fadaa'isha qiyaamul layl ka hadlayno ma ahan oo kaliya salaada labada iyo saddexda iyo saacadaha noocaas ee waqtiga dambe la kaco kaliya waxa soo galaysa salaadii taraawiixda iyo salaada witriga loo yaqaanay ashaa'iga kadib la tukado intaas oo dhan baa soo galaysa taas ugu sii fadl badnaatay marka habeenka thuluthul akhirkiisa la tukanayo qiyamul layl فضل كوبادا ينشيق دونو أن قيام الليل من صفات أهل الجنة قيام الليل كو وحاو كميديا ذاتك أهل الجنة اللو يقانو على مضها أيليهين إلهي سبحانه وتعالى كيو أهل الجنة كورمي في سورة الذاريات وحولي إن المتقين في جنات وعيون ذاتك متقين تأه إلهي سبحانه وتعالى الدنيا شيدك قاعد سنجري وحي كسو غنيهين جنوين iyo nicmooyin dhaxdeeda آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين waxay qaadanayaan nicmooyinkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada dhaxdeeda uu ku siiyay إنهم كانوا قبل ذلك محسنين adduunyada yani jannadan intii ka horeysay adduunyada soo jeegay waxay ahaayeen dad muhsiniina oo sanfalayaal ah كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إحسان كودية سمافل كودية وناقي أي سمينين محاكم إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وحي أهايين كوها بينكي إنير أو آذ إير كالسيح ذا مركا يهجعون وحل إلى ذا وهردد ير إهبينكي نحن عغا مركا إلهي سبحانه وتعالى تذكى أهل الجنة وحكوت المامي habeenkii inayaan hurdo ku wada qaadanin
بل سإلهي سبحانه وتعالى إن وإستاغان إلهي وتكذان وبالأسحار هم يستغفرون وقت السحر إيا وقت قا صلاة الصبح كهر ريسا إيدان كيدنا إلهي بي دنب داف ويديستان مركز صفات أهل الجنة محاكم إذا أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلهي سبحانه وتعالى dadka qiyaamul leylka tukada habeenkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu taaga aad buu u amaanay quraankiisana amaantooda ku nuuxsada Ilaahay subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun marka fadliga iyo qiimaha labaad ee salaatul leylku uu leeyahay waxa kamida inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharfay oo uu qiimo u yeelay oo quraankiisa cadad iyo tira aan lahayn uu ku amaanay cadad aan tira lahayn oo la soo koobi karin uu ku amaanay amaanta waxa kamida inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri tatajafa junubuhum 'anil madaji' dhinacyadoodu waxay ka fogaadeen hurdaday ka fogaadeen iyo makaanu jiifka waayo yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'a rabbigood bay baryayaan iyaga marka naxariistiisa rajeynaya ciqaabkiisana ka cabsanaya waxaanu marka ku arsaaqnina waxbay ka bixinayaan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun nafina ma ogabu Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay waxa loo diyaariyay ee loo qariyay ee marka wax ay ishu ku qawsata waa loo qariyay jazaagoodu iyo abaalmarintoodu weynida ay leedahay awgeed jazaa'an bima kanu ya'malun arinta maxaa loogu sameeyay waxa weeyaan waxa lagu abaalmarinayaa wixii ay soo shaqeynayeen oo in ay qiyaamul leylku istaagi jireen dhinacyadooduna marka hurdada ay ka fogaatay walaalayaal qiyaamul leylka fadaa'ishiisa waxa kamida أن قيام الليل من أعظم وأكبر أسباب دخول الجنة إنه مركا كميديا هي قيام الليل كو وحيابها أقوى وين سبب مركا قفكو إنه الجنة كو قوليستو نبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نبي عليه الصلاة والسلام سلامتا فافية والسلام عليكم نحن كفافية عنتدنا ضدك قوضية أرحامتينا يقرأ